Corona waxa uu ku bilowdaa xanuun fudud oo laga bogsan karo, balse dadka qaar daryeel caafimaad yari darteed ayaa ku qasabtay inay gaaraan heer ay u dhintaan. Haddaba, si aad uga hortagto fayraska dilaaga ah, samee tallaabooyinkan soo socda oo ay ku siinayso Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo nadiif ah, sababtoo ah in gacmahaaga aad ku nadiifiso saabuun iyo biyo nadiif ah waxay dishaa jeermiska iyo fayraska ku nool gacmahaada. Masaafo u jirso qof waliba oo qufacaya, u jirso 1 mitir ama 3 fiid qof waliba oo qufacaya ama hindhisaya, sababtoo ah qofka qufacaya ama hindhisaya waxa uu sii daayaa dhibco yaryar oo qoyaan, taasoo kuu keeni karta inay u gudubto neef-mareenkaaga oo aad ku qaadi karto cudurka haddii uu qabo qofkaasi. Ka fogow taabashada sanka, afka iyo indhahaaga, maxaa yeelay taabashada indhahaaga, sanka iyo afkaba gacmuhu waxay u dusin karaan fayras gudaha jirkaaga haddii ay wasakhaysan yihiin. Joogtay nadaafadda deegaanka iyo hawada. Hubi adiga iyo dadka kuu dhow inaad hagaajisaan nadaafadda hawada iyo jawiga aad la nooshihiin. Marka aad qufacayso ama aad hindhisayso, isticmaal maro ama tii si aadan hawada ugu sii dayn dhibcaha qoyan ee ka imanaya sankaaga iyo afkaada, kadibna ku tuur meel ku habboon marada aad ku qufacday. Tallaabooyinkani waxaa soo saartay Hay'adda Caafimaadka Adduunka si looga hortago faafidda iyo khatarta fayraska corona.